habeenkii xalay magaalada Hargeysa waxa lagu soo bandhigay buug laga qoray Allah u naxariiste madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliland ahana gudoomiyihii aslam soo gelitaankii dalka Cabdiraxmaan Maxamed Cali Cabdiraxmaan Tuur waxaana goobta lagu soo bandhigay ay ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan oo ay ugu horeeyaan siyaasiyiinta ugu waaweyn dalka ee ka kala socday xisbiyada qaranka xukuumadda iyo xisbiga kulmiye iyo mas'uuliyiin kale oo kala duwan oobtaasi markii uu hadalku bilaabmay ayaa waxa isbedelay jawiga guud ahaan waxa uu noqday jawi siyaasadeed oo si weyn loogu kala aragti duwan yahay waxaana goobta isku muquurtay siyaasiyiin muddooyinkan ugu dambeeyay kala irdhoobay oo ka kala tirsanaa xisbiyada mucaaradka gaar ahaan hogaanada Faysal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Ciro Maxamed Kaahin Axmed Siciid Sulub Maxamed oo iyaguna dhinaca xukuumadda ahaa waxaana si weyn halkaasi ay goobtii u noqotay goob ay sidoo kale joogaan taageerayaal kala duwan gaar ahaan taageerayaasha sida khaaska xisbiyada mucaaradka u taageera oo iyagu buuq iyo sawaxan goobta ka sameeyay kadib markii ay soo kaceen qaar ka mid ah golaha wasiirada gaar ahaan wasiiradii goobta ku sugnaa jawiga oo noqday mid cakiran kadib waxa halkaasi hadallo ay ku dhexmareen Maxamed Kaahin Axmed wasiirka arrimaha gudaha wasiirka xanaanada xoolaha Siciid Sulub Maxamed Cabdiraxmaan Ciro musharaxa xisbiga wadani iyo sidoo kale Faysal Cali Waraabe musharaxa xisbiga Cabdiqaadir Jirde oo isaguna halkaasi taariikh kala duwan kaga sheekeeyay guud ahaan jawigu sida khaaska si weyn looga hadalhayay bulshada qaybaheeda kala duwan hadalladii ugu adkaa ee ay asxaabta siyaasadda dalka iyo xukuumaddu isku weydaarsadaan goob ay wada joogaan waxa uu dhacay sidan anigu waliba reer Burcaan ahayo qayladu magaaladayda ka soo bilaabataayo qayladu ninay didinaysa mihi كنيسان عيال يدل يراهم كسوتنا بسم الله ور عبد الرحمن عيالك يا مسي عيالك يا مسي عبد الرحمن رجينا عرورتا فوري يسوتا رجينا مضشي كدغاي عبد الرحمن تور مانتا لوغو حسينيي لوغو دعينيي مالك لوغو شريفيي مدل سياسات كدغاي waxaan leeyahay war iska casila siyaasadda waxba ma tiidine wasalaam ina kooran saxaya ina koore waa idin sheegaya khaatumo waa beesha dhulbahante ururkoodii buu ahaa madaxweynihii Cali Khaliif 22kii qodobeen la galay anagu tixraacina heshiiskii maran jiray aan ku qabanay aynaba oo furfurnay on afar wasiir oo kaahinkaas ka mid yahay kaahinkaas iyo aniga iyo ambassador Awil aan la qaadanay waxay soo taageen in koore iyo baashe iyo faratoon iyo intii ku jirtay ayaa istaagtay marka cid ka hor joogta maahe laakiin waxa laga rabaa in taleex iyo buuhood leh deyn calanka geesa laga rabaa oo footeeyaan laga rabaa markaasaadna waxaan jabi kartaa oranka walana qadiyay adigoo maqan tamaha oran kirta walana qadiyay marka maaha inaynu istafirno maaha anigu waliba reer Burcaan ahayo qayladu magaaladayda ka soo bilaabataayo qayladu ninay didinaysa mihi Cabdiraxmaan waxaan caawa ka oran lahayn raggii qasay ee qaylada galiyay bay u taalaayeen annaka nooma taalo taariikhdiisaanu ka hadli lahayn aragtidiisaanu ka hadli lahayn markuu safiirka ahaa muxuu ahaa baanu ka hadli lahayn raganimadanu ka hadli lahayn haddaanu isqabanana aragtiyo iyo rag isqabtayo fikir ku kala baydhay baanu ahayn laakiin intaanu ciyaal iyo dhalinyaro halka soo tagno Cabdiraxmaanow adiga iyo Faysal iyo Xirsi iyo labadiina xusbi caawa sida u kufsateen ka hadli mayno waa kow
والله ومرك اللباد ومرك اللباد ومرك اللباد فيصل باه هدرت halkan ka hadlay anu waxaan leeyahay Faysal baa ka hadlay hadda oran maayo anigu Faysal kaasiyo halku iga lahaa ina kaahinka Faysal baan anigu ka leeyahay arrimaha laga hadlayo waxa kamida inaydaan nabadda diyaar u ahayn inaydaan siyaasadda deganaanshihiisa nabadda u ahayn inaydaan xaaladda siyaasadda ee dalka nabadda u ahayn inaydaan intaan nabad u ahayn mas-uuliyiin qaran oo arrin qaran doonayana aydaan ahayn saaxiibayaal waxa diyaar u ah xafladda inaad qaylo ku damaysaan annaku anigoo dawladda ka wakiila waxa aan anigu dadka u sheegaya waxa aan u sheegaynaa waa kaa way dhici karaysaa inaan 200 oo inan iyo 1,000 inan oo inanoo kulmiyo taageeraya meel isugu keenno oo ay idinku qayliyaan waanaan aqbalaynin xaasha waanaan yeelaynin wasiiradii halkan ka kacay dadkan ay ka cabanayaan waa dadkii ay xukumayeen madashani may ahayn madal xisbi soo abaabulay may ahayn madal wadani soo abaabulay aniga iyo madaxda kale xisbiguba waxaanu ka mid ahay dadkii la soo casuumay wasiiradii halkan ka kacay dadkan ay ka cabanayaan waa dadkii ay xukumayeen waa dadkay xukuumadda u ahaayeen waxayna tusaysaa taasi dulqaad la'aanta xukuumadda Soomaaliland dulqaad la'aanta mas'uuliyiinta xukuumadda Soomaaliland foolxumooyinkii qaar ka mid ah wasiiradu halka kaga cabanayeen waa foolxumada ka dhalatay dawladda ama xukuumadda ayagu matalaya magacay doonaan baa u bixiyaan laakiin taa caawa kuma saabsaneed xafladdu waxay ku saabsanayd annagana lagu soo casuumay inaanu ka soo qayb galno soo bandhigidda buugga taariikh nololeedka cabdiraxmaan axmed cali oo ah madaxweynihii ugu horreeyey ee jamhuuriyadda Soomaaliland waa rag la xidhxidhay maxamed kaahin oo kale rag la xidhxidhay buu waxaan ka shaqeeyay waxa lagu hayay halkan booliisku waxaan ka shaqeeyay in joog muqmad aan u geeyo dhiibay way soo gaadhay kale way soo gaadhay joogaas dad aanu ehelnahay isagana helin baan ugu sii dhiibay waa xaggii xaafadayda baa laga keenay islaamaya ku fiican hawshaas marka khilaafka siyaasigu ha jiro laakiinse yaa la isxaqirin yaa nin qaran dumis lagu sheegin nin khaain lagu sheegin ninna dictator lagu sheegin taana waan ku darsanayaa ninna dictator lagu sheegin siyaasadii aan laga hadlin baa la yidhi ka hadli maayo sidaa inagu guubaabiyeen marwooyinkeennu anigu waxaan jecelahay anigu waxaan u imi anigu caafimaadkii aanu ii dhammaan ayaa dadkii qurbuhu igu qaylay war meeshii tag wuxuun baa taraysaaye tiina baanahay tiina la diyaar baanahay waanan jecelahay in si walaaltinimo ku jirto siday labadaa nin ee waaweyn ee mawaaqifta kala fog taagnaa ay walaaltinimada ku dheehan tahay iyo milgaha iyo ixtiraamka iyo isihilowga ay ku wada hadlayeen in sidii lagu wada hadlo taana waan ku faraxsanaya dhacdo miduu maan ku darsanaya waa si siyaasadda laga hadli maa la yidhi middan ku darsanaya waxa weeye magan waxaanu idinka nahay wasiirka arrimaha gudaha wuu joogaa madaxweynehina wuu maqlayaa si ay hawshaas inagu socoto waxaan codsanayaa anugu personally nimankaa xidhan in la soo daayo si wada hadalladu inoogu socdaan oo kalgacalkan sheegaya ixtiraamkan sheegayay
uu meesha yimaado dadka intooda badan iyo bulshada qaybaheedu waxay sheegayaan inay tahay markii ugu horeysay ee goob fagaara ah oo ay isugu yimaadeen siyaasiyiin hadallana isku weydaarsanayaan dadka goobta fadhiyay ee shacabka ay kala taageeraan waana mid si weyn wajigabax ugu noqotay wasiiradii ka socday xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi maxamed cali xaashi telefishinka badda cas magaalada hargeysa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin